Ruushka ayaa qalqal ku abuurtay Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedka kadib soo bandhigoodii hub casri ah kaa oo bidhaaminaya sida Ruushka ugu diyaar garoobay dagaalka Ukraine iyo kuwa garabka siinaya. Xaaladda ayaa noqotay mid walaac abuurtay kadib isticmaalka Ruushka ee gantaalka Oroshingi kaa oo cabsi hor lagu keenay Mareykanka iyo NATO. Hubkan cusub ayaa noqon kara mid meesha ka saara awoodii NATO ee taageerada Ukraine. Gantaalkan ayaa ah mid hypersonic ah oo xawaare sare leh, mana jirto difaac la hubo oo ilaa iminka ka hortagi kara, waxaana sida la aaminsan yahay gantaalkan uu saameyn istiraatiijiyadeed ku keeni karaa dagaalka iminka socda, taa oo ah arrinta walbahaarka ku riday Ukraine iyo xulafadeeda. Gantaalkan ayaa ah mid ku duuli kara xawaare ka badan 7,000 oo mayl saacadii oo u dhiganta in 11,000 oo mitir uu jari karo saacadii, taa oo ka dheeraysa wax ka qabashada nidaamyada difaaca ee Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedka. Sidoo kale Ruushka ayaa fajac ku abuuray Ukraine iyo xulafadeeda, waxaana uu soo bandhigay hub ay Ukraine ka argagaxday. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa shaacisay in la howlgelinayo doomo dheereeya oo iyagu iswada, kuwa ay ku xiran yihiin qaraxyo si dhammaystiran u burburinaya maraakiibta iyo dekedaha. Sidoo kale waa kuwo awood u leh inay quusaan, waxaana tallaabadan lagu macneeyay inay halis ku keenayso dekedaha Ukraine iyo maraakiibta saadka u daabula. Dhanka kale Ruushka ayaa ku dhawaaqay in ciidankiisa uu ka qaaday dhammaan xanibaadii ka saarneyd adeegsiga gantaalada riddada dhexe iyo kuwa riddada dheer kadib markii Ukraine ay jebisay xeerarkii adeegsiga hubka wax burburiya. Waxay hadda ciidanka Ruushka xor u yihiin inay adeegsadaan noocyada gantaalada kuwaas oo burbur weyn dhalin kara, sida ay shaaca ka qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Ku dhawaaqistan ayaa daaha ka qaadaysa in weji cusub uu gali doono dagaalka Ukraine. Sida la ogyahay Ruushku wax ka badan hal mar ma adeegsan gantaaladiisa wax burburiya muddada ku dhow 4 sano ee uu socdo dagaalka Ukraine, waxaana waqtigan in ciidanka Ruushka loo ogolaado adeegsiga gantaalada ay bilaaw u tahay isbeddelka dagaalka iyo burbur xoogan oo ku habsan kara goobaha istiraatiijiga ee Ukraine. Madaxweynihii hore ee Ruushka Dmitry Medvedev oo hadda ah ku-xigeenka guddiga amniga qaranka Ruushka ayaa hadal digniina u diray isbahaysiga NATO, isagoo yiri ciidanka Ruushka waxaa laga qaaday xanibaadii ka saarneyd gantaalada, taasina waxay ka dhalatay falalka cadowga, sidaa awgeed kuwa naga soo horjeeda ha u diyaar garoobaan tallaabooyin dheeraad ah. Geesta kale sirdoonka Ruushka ayaa muujinaya feejignaan dheeri ah. Saacadihii lasoo dhaafay hay-adda sirdoonka Ruushka ee FSB ayaa soo bandhigtay howlgal ay fashiliyeen oo Ukraine ku doonaysay in lagu dilo madaxa shirkad ka shaqeysa arrimaha difaaca oo ku sugan gudaha Ruushka. Dilkan waxaa loo adeegsaday inuu fuliyo muwaadin u dhashay Ruushka oo lacag ku qaadanayay, iyadoo xiriirka uu la lahaa sirdoonka Ukraine uu ka socday barta Telegramka, balse goortii uu aaday halka uu dilka ka fulin lahaa waxaa gacanta ku dhigay sirdoonka Ruushka oo ka war helay isku daygan dilka ah, sida uu baahiyey telefishinka Ruushka ee RT. Sidoo kale sirdoonka Ruushka ayaa shaaca ka qaaday howlgal sirdoon oo Ingiriisku diyaarinayo oo la doonayo inay fuliso Ukraine si loo burburiyo dhaqaalaha Ruushka. Moscow waxay shaacisay in tallaabadan ay isku dayayaan reer galbeedka inay dunida u horseedayso burbur dhaqaale oo meel walba gaara, Ruushkana uusan faraha ka laaban doonin. Ergeyga gaarka ah ee wadaxaajoodyada iyo arrimaha bariga dhexe ee Mareykanka Steve Witkoff ayaa dhowaan gaaray magaalada Moscow ee xarunta Ruushka si uu wada hadal ula yeesho mas'uuliyiinta Ruushka kadib burburka hareeyay xiriirka labada dal. Intii uu Moscow joogay, Ruushka ayaa sidoo kale ku dhaqaaqday tallaabo kale oo dharbaaxo ku ah Mareykanka, waxayna diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku garaaceen xarun kayd u ah agabka militari ee Mareykanka uu siiyey Ukraine oo ku taala koonfurta dalkaasi, sida ay shaaca ka qaaday wasaaradda tamarta ee Ukraine. Diyaargarowga uu Ruushku muujinayo ayaa Mareykanka ku qasbay inuu la fariisto Ruushka, waxaana saacadihii lasoo dhaafay uu Putin ogolaaday in kulan foolka-fool ah ay yeeshaan isaga iyo Trump, kaa oo noqonaya midkii ugu horreeyay tan iyo markii dagaalka Ukraine uu bilowday. La taliyaha aqalka Ruushka ee kriminaalka Yuri Ashokov ayaa mar uu warbaahinta la hadlayay wuxuu yiri markii ay Mareykanku soo jeediyeen kulanka waxaa la gaaray is-afgarad hordhac ah. Shir labada dhinac loo qabto ayaa maalmaha soo socda dhici doona. Hadda waxaan la shaqaynaynaa Mareykanka si aan u diyaarino faahfaahinta kulanka. Toddobaadka soo socda ayaa la asteeyay inuu noqdo xilliga uu dhacayo. Waxaa kaloo dib laga soo sheegi doonaa halka uu ka dhacayo kulankan. Sidoo kale Putin oo wax laga weydiiyay halka uu ka dhacayo kulanka uu la yeelanayo Trump, waxa uu sheegay in dalal badan oo saaxiibada Ruushka ay u diyaarsan yihiin inay kulanka martigeliyaan, balse wuxuu hoosta ka xariiqay inuu ka dhici karo Imaaraadka maadaama toddobaadkan madaxweynaha Imaaraadka Mohammed bin Zayed Al Nahyan uu booqasho rasmi ah ku tagay Moscow, kaas oo dalbaday in kulanka uu martigeliyo. Putin ayaa dhanka kale sheegay inay macquul noqon karto inuu la kulmo Zelensky haddii la helo xaalado gaar ah oo la diyaariyo. Kulankan ayaa sida la rumaysan yahay qaboojin kara walaaca la muujinayo waa haddii la isku afgarto, balse markasta diyaargarowga uu muujinayo Ruushka ayaa saadaalin karta xaalad halis ah.